waxaan halkan ku gudoomeynaa makiinado dawaarka ah oo cusub oo ay noo soo dirtay marwada koowaad ee dalka marwo Aamina Waris Maxamuud Jirde anagoo uga mahad celinayna kana gudoomeynaa iyadoo ay noo sido noona keentay makiinadaha naguna wareejinayso la taliyaha dhinaca haweenka ee madaxweynaha marwo Amal Xaaji Axmed Miisaan aad iyo aad ayay u mahadsantahay marwadana waan uga mahad celinaynaa waana ka gudoomeynaa siday ugu tala gashayna iyaduba u keentay ayaan anaguna tacabkeega u muujinaynaa makiinadahaas oo waliba ay dadka curyaamintiina isticmaali karaan way jireen arday hore oo aan dawaarka barnay oo qalin jabin ku dhow laakiin makiinadahan imika ilaa kuwa curyaanka ah ayaa ka qayb qaadan kara oo ku tababaran kara aad ayaan marwada oo xaruntii ururka qaranka ee naaw ee gobolka Awdal taasoo ay maanta ka socdeen hawlo shaqo anaguna aan ku soo beegnay si aan ugu wareejino deeq makiinada ah oo u soo dirtay marwada madaxweynaha marwo Aamina Xaaji Maxamuud Jirde makiinadahaasi oo ah makiinadii ay ku baranayeen dawaarka gaar ahaan dadka ilxaadkooga waayay waad aragtaan in badan ba halkan waxa lagu bartay dadka caafimaadka qaba ilxaadkooga qaba ayaa waxay ku barteen deeqa hore oo loo keenay oo makiinada ah ayaa waxay ku baranayeen sida dharka loo talo waa iskool uu ka socdo horumar badan sida dharyaha loo kariyo iyo waxyaabo fara badan oo ay qabtaan maantana waxay nasiib u yeesheen inay ugu soo biiraan makiinadihii dadka ilxaadkooga waayay ay wax ku baranayeen gaar ahaan lugaha waana ilaahay mahadi qof walba meesha uu waayay ma meesha kale inuu wax ka barto oo uu wax ku qabsan karaana waa arin aad iyo aad muhiim u ah marwada garatay in ay caawiso dadka ilxaadkoogii waayay xirfadaha ay ku shaqaystaana inay u abuurto samaysay waan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay marwad mahadsan tahay dadaalkaaga faraha badan leh ee aad gelinayso haweenka Soomaaliland oo dhan run ahaantii makiinadahan intii daawatay way daawatay gobolada dalka oo dhan waa laga simay ilaa Ceerigaabo Sool Sanaag salana u yaalan kuwoodii gabilay meel aan la geenin waa meel aan jirin waa deeq ka siman gobolada oo dhan reer Awdalna waxaan rajaynaynaa inay iga gudoomaan sida aan ku soo gaarsiiyay waxaan jecelahay inay uga mahad celiyaan marwadii u keentay waxaan leeyahay marwada ka daalin haweenkaaga waanad ku mahadsan tahay waa abaal lagu hayo aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa waa makiinadihii xabad ka mid ah gudoomiye waxaan kugu wareejinaynaa deeqda makiinadaha ay soo dirtay marwadii madaxweynuhu si aad hor ugu marisaan waxqabadkiina horumarkiina dadkiina caafimaadka qaba iyo dadkiina aan caafimaadka qabin bas aad hor ugu marisaan waxaan iniga signaa marwada salaad farsaalaha u soo qaadatay ay tiraahdo ururka gobolkiisa horumariyo waa ururka qaranka ee gobolka Awdal sidaa iyadu inagu hambalyeynaysaa anaguna inagu hambalyeynayna deeqdina waa lagu wareejinay inaga idin taala aad baad u mahadsantahay halkan waxaan ka salaamayaa marwada madaxweynaha oo aad anaga noo dhiirigelisay mar walba aad noogu qacan haysa maantana noo soo dirtay makiinada qaaliya oo u soo dirtay dadka tabaalaysan ee naafaha in aan wax ku barno anaguna aan diyaar ugu nahay haweenweynaha awalba wixii caafimaad qaba iyo wax ku baran jiray imikana inaan gacanta ku qabano haweenka naafada ah sida ay jeceshay anaguna aan hirgelino aan soo warno TV-yada aan ka sii deyno haduu Ilaahay yiraaho marwaduna aad baa u mahadsantahay waana uga mahad celinaynaa boqol aad iyo aad waa maalintii ay ardaydu u lahaayeen cuntada xirfadaha kala gaarka ah ee ururkan qaranka ee noo hadaan nahay aan bixino waxa kamid ah farshaxanka cuntada dawaarka cuntada madaniga ah marka maanta waa khamiis maanta oo kale cuntada ayaa ardayda la baraa marka macalimiintooduna waa tan ardaydina waa kuma fadhiya maanta cake bay u leeyihiin cuntada maalinba cunto nooca ayaa la baraa arday hore ayaa halkan ka qalin jabisay dubcadii hore dubcadana waa dubcadii labaad weeyaan bilow weeyaan casharadoodu imika u bilaabeen waxaan isku darnay beer caano sonkor daqiiq bikin subag vanilla